Gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka ee gobolka Shabeellada Hoose Wardi Ismaaciil Axmed ayaa gudaha degmada Marka ka wada afurin loo sameynayo qoysas danyar ah. Inkastoo qoysas badan oo danyar ah magaalada ku nool yihiin. Gudoomiye Wardi ayaa telefishinka Som News TV waxa uu ka wareystay sida ay u afurinayso dadka danyarta ah ee ku nool degmada Marka. Bismillahirrahmanirrahiim. Horta anigu waxaan ahaa gabar mar walba u taagan inay caawiso bulshadeeda. Waxaan badan la soo shaqayn jiray hay'adaha samafalka qaarkoodna waxaan sameyn jiray barnaamij oo isxilqaan la yiraahdo aan ku caawin jiray caruurta agoominta hooyooyinka danyarta ah. Tan ilaa iyo intaan xilkan soo qaban waan sameyn jiray inaan u bixiyo samafal sida maamooyinka barakacay kuwa dhibaatada haysato maahan wax hadda aan bilaawday waa wax aniga aan kiskeyga aan u sameyn jiray oo haddana aan wado aan rajeynayo in meel fiican aan ka gaaro sidaan bulshadeeda aan wax badan ugu faa'iideeyo. Maasha Allah waa su'aal aad iyo aad ugu fiican waxaan dhahayaa waxaa jira walaalo badan oo aniga ii caabiyo haatee ha joogaan dalkii ha ka maqnaadaan dalkii tan iyo waagii aan soo waday hawsha samafalka hay'an walaalaha markacadii ayaa aniga mar walba garabkeyga taagan oo wax alla oo waxaan maanta aniga aan ka damqado aan u baahanahay dadkaas inaan la qabto ayaga waa dadka mar ugu horeey aan la tashto kadib waxay ii soo dhiibaan anigana aan u geeyaa dadka loogu talagalay. Anagu waxaan bixino waa afur waxaanu bixino waa raashinkana ma aha yacni wax maanta iyo beri damba ku eg ma ahan waxa jiro dad badan oo khayrka jecel oo maanta yacni qayb weyn ka qaatay ayaa jiro maalin walba hatta ha ahaato lacag xitaa yacni la bixino way jirtaa oo masaakiinta lagu sadaqaysto oo dadka kor naga caawiyo. Gudoomiye Wardi ayaa waxa ay bulshada Marka iyo ganacsatada ugu baaqday in afur loo sameeyo qaxootiga magaalada ku nool ee aan awoodin in afur ay iska bixiyaan. Maasha Allah horta sida waayaha dambe aan u wada ognahay in degmada Marka ay ku sii badanayso dadka danyarta ah iyo barakacyaal aad u badan waxa ku jiraan hooyooyin maanta xitaa hadii la dhaho ha shaqaystaan aan shaqaysan jirin waxa jiro hooyooyin caruur haystaan waxa jiro yacni dhibaatada mar walba way jirtaa bulshadeenta Soomaali ilaa iyo degmada ilaa iyo madaxdeena koonfur galbeed waxaan ka codsanayaa oo aad iyo aad ugu codsanayaa maadaama aan ahay codka dumarka maanta gudoomiye ku-xigeenka haweenka gobolka Shabeellaha Hoose waxaan si weyn aan mar labaad mar saddexaad aan ugu baaqayaa madaxdeeda in si degdeg ah dadkaas wax loogu qabto xilligan ay ku sugan yihiin buufo bacaale xaaladda aad ay u xun tahay ilaa hadda ma arkin wax gargaar degdeg ah loo sameeyo ama halkaan hay'ad soo gaarta soo fiiriyo xaaladahooda meesha caruura ku jirto marka damqasho wadaninimo hadii ku jirto Soomaali Maxamed waxa idin ka codsana habeenkaas in loo istaago habeenkaas in garabkooda la galo waayo xanuunka maanta ay ka hayaan anagana yacni wuuna saameynaa mana aha wax yacni anaga aan fiirsan karno hay'adaha samafalka waxaan u baaqayaa in si degdeg ah halkaan ay ku soo gaaraan ee u arkaan dadkan dhibaataysan waa habeenkana waa doorkii nolosha yacni waxa idin dhahayaa Soomaali Maxamed halis garab siiyo dhibaatada meesha ka jirtana u kaca dadkan dhibaatada ku soo habsatayna garab siiya maanta adinka in laga fadhiyaa dadkaasito. Wardi Ismaaciil oo dhawaan loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka haweenka ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa degmada Marka waxa ay ka wada afurin waxayna u istaagtay in dadka aan awoodin afurka ay afuriso. Jaabir Baakay, Som News TV.